wiil dhalinyaro ah oo youtube ah youtuber ah oo aan aqoon diineed lahayn aqoon adduunyo aan lahayn asaga laftiisu fasaadsan waa youtuber xoolo raadisa ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in dad ku raaco oo waxoogaa adduunyo aad ka hesho ujeedadiisu dhan ay sidaas tahay ayaa ummadii boqolaal kun oo ummadda ka midaba buu hogaaminaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود على كسر هذا تنلقينا فضلا هذا نوع عصب تهاي سبسكرايب صار هذا هو اللي جوتكم عشان تهاي فيديو ولا لايك صار ما تا وحكى لنا إيش لنا يرضى سومالي ذا يو سوشيال ميديا سووا استعمالان سووا لوجنا هاي سوشيال ميديا وحاول دبل سايد سول واي وسيف لواقف له مربع لنا عبد استعمالك كرتا لنا وناكسن أما لنا حن أو استعمالك كرتا marka ma sha Allah sheekhu mal ilaahay xifdiye qara la siiyo wuxuu ka hadlay dhalinyarada Soomaalida iyo qaabka ay u isticmaalaan social media social media dad badan dhalinyaro badan oo si fiican u isticmaasho oo qaab fiican u isticmaasho way jiraan oo wanaag ku faafiyo dhalinyarada si xun u isticmaashana way jirtaa isla markii videoga markuu soo shacbaxay oo sheekhu mal dad badan isla markii waxay u fasirteen videoga inuu ku saabsanaa Captain Ayub sidaas aan dhahnaba saas aan qaadanaba inuu Captain Ayub ku saabsanaa Captain Ayub saawada ognahay waxa waaye wuxuu ku caanbaxay inuu diinta caayo inuu xumaan uu macnaha in marba uu soo wariyo marka mataqaanaa shaqad waayii ugu dambeysay wuxuu isku bedelay dagaal oogay uu isku bedelay ma fahamtay wuxuu sameynayay laba qabiil uu isku balaminayo wuxuu dhahay mataqaanaa gala dagaalka ma fahamtay marka wuxuu leeyahay sidoo u waday dagaal oognimadiisu u waday social media inuu sidoo dagaal ooga ahaa ninkaas aad ognahay Jarmalku uu deganaa oo wuxuu maangeli weydiistay oo mataqaanaa isha halkaas uu deganaa oo qaxooti ku ahaa marka wuxuu sameeyay markaas sidoo social media uga waday dagaal oognimada uga waday wuxuu ka degay goobtii dagaalka uu ka socday furintuu tagay halkaas uu videoyaal isaga soo duubay sawiro ku soo galgalay xataa asoo suugridaayo oo video iskaga soo duubay isla markii dad Soomaaliya mataqaanaa ayaa dacweeyaa la dhahay oo videogii wax u geeyeen dawladii bas Captain Ayubna marka asoo ka warqabin ayuu wuxuu ku laabtay Jarmalku ku laabtay wadankiisu ku laabtay markuu halkaas ku laabtay waxa waraaqad guriga loo soo galiyay oo maxkamad ah balan maxkamad warqadii markuu arkay isla markiiba lascaanadu ku laabtay goobta dagaalka socdo ku laabtay halkaas ayuu magangelidiisa iyo sharcigiisa uu ku waayay ma marka sheekhu mal ilaahay qarasiye horta si fiican ay ugu hadlay dhalinyarada qaabka ay u isticmaalaan dad baa jiro mataqaanaa oo sports u isticmaalo dad waxyaalo kale u isticmaalo dad si fiican u isticmaalo dad si xun u isticmaasho marka bal videoga sheekhu mal bal waxa la daawado waxa laga dhageystaa maanta dadka kuwii ugu liitay السفيه الفويسق التافه من لا يبأ به حديث كتب صلى الله عليه وسلم صومنا لكن ما أنت تصالياش الله سوق قبل كيرو تحكوا فهمي كرتان واحد كمله ويل اللي يراه أو يوتيوب لا يوتيوبر أو أنا أقون دين اللهين أقون الدنيا عن اللهين أسير لفتي سوف سهتن ويوتيوبر حول الرادسة وجددي سأقول أي تهاي إن ضد كراعة أو waxoogaa adduunyo aad ka hesho ujeedadiisu dhan ay sidaas tahay ayaa ummadii boqolaal kun oo ummadda ka midaba buu hogaaminaya warkiisa soconaya asagaas la raacsan yahay hadda ogow shakhsiyadiisa markaad fiiriso xataa waxar lugla lagu aamini maayo waxar lugla intuu foofiyo ma soo hin karo dullinimadiisa isugu yaal haddana markaad fiiriso khalaa'iq baa ku xidhan khalaa'iq buu kiciyaa qabaa'ishu isku diraa ummad buu hogaamiyaa waa la dhageystaa amarkiisa socda masaalixda guud buu ka hadlaa mar diin buu gali mar muxuu ahay adduunyu gali mar siyaasad buu gali mar qadaa buu gali qadayaadkii nabigu hadda ka warramay sallallahu alayhi wasallam buu galaya isaga markaad fiiriso shakhsiyadiisana waa bini aadamkii kii ugu xumaa waay soo waqtigeedii ma joogno marka siyaasad kaliya ma markaad u fiirsato Soomaalida channel-ladooda YouTube-ka
ama Facebook markaad u fiiriso page-kooda markaad fiiriso kuwa ugu badan oo dadka ugu badan ay raacsan yihiin waa laba qolo ka sheekaysa ciyaaraha iyo madadaalada waliba kuwa ugu dad badan Soomaalida garan iyo qolyaha kale oo kuwa afxumada iyo dhaqan xumada iyo dadka isku dirkiisa iyo kala dilkiisa ka shaqeeya labada qola ugu badan social media dadka ay Soomaalidu dhageysato ama ay raacsan tahay ama ay warkooda dhageystaan Soomaa marka ar-rajulu safih at-tafi yatakallamu fi amri al-'amma ma antan joogna siyaasad kaliya fiirina waxaad arkaysaa mid lagu leeyahay waa khabiir waa aqoon-yahan wuxuu taxliiliyaa oo falanqeeyaa arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha markaad isaga u fiirsatana qiimo weyn kuma fadhiyo hadduu xoolo ahaan lahaa suuqa la geyn lahaana lama bagateenba haddana maca dalika waxaa la leeyahay waa khabiir aqoon-yahan oo khatar ah oo muxuu ahay rugcadaa baa lagu leeyahay markaasaa waxaa la weydiinayaa qadaayaadkii ugu halisanaaya ummaddanu lahayd buu taxliilinaya bal u fiirsada waxaa laga yaabaa ninka isaga ah reerkiisii islaantiisii iyo carruurtiisii waa dayacan yihiin carruurtiisii lume waxaa laga yaabaa qurbuhu kaga yimid qurbaha kolay midba midu cararahay iyo qurbaha kaga yimid islaantiisii dhaqan iyo diin male ama waa horuu dayacay wuu ka yimid nin maamuli kari waaye ilaahan idinku dhaariyay islaan iyo 5 ilmood oo dhashay ayaa intuu yimaado kursiga fuulaya markaasuu wasiir noqonaya ama madaxweyne noqonaya ama intuu soo fadhiisto waxa la leeyahay waa khabiir wuxuu taxliiliyaa qadaayaadka istiraatiijiga ah war maxaa taxliilina habaarka ugu dhacay ilmahaagii aaway islaantaadii 5 ruux baad ka adkaan weyn markaasaad ummadeeda soo hor fadhiisataad qadaayaadkeeda caamka ka hadlaysa waxaas way waxa marka inuu hogaaminaya laascaanood markii uu ka degtay kabtan ayuub waxaa loo soo dhaweeyay soo dhaweyn xoog leh loo soo dhaweeyay si aan culimada aan loo soo dhaweeyna xataa loo soo dhaweeyay oo caadi ahaan ummadina isugu soo baxday marka halkaas waxaa ka muuqanayso ummadii mataqaana isha keenana aqoontii inay ku yar tahay inay mataqaana diintii badana mataqaana isha aqoon badan u lahayn ay ka fogaadeen qaarkood mataqaana isha keen si aan caadi ahaan maadaama uu soo dhaweeyay kabtan ayuub ninkii dagaalka iyo ka shidaayay mataqaana isha keen social media ka shidaayay marka culimada macnaha looma soo dhaweystay loo soo dhaweeyay dadka ina aqoonta diinta inay ku yartahay halkaas ayaa ka muuqato marka waxaan leeyahay dadka diinta ha bartaano culimada ha la xushmeeyo culimada mataqaana ay sheekeen si fiican ha loo dhageysto cilmigooda ha laga faa'iideysto ha laga barto